wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon oo ku helinaya wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed ayaa kulan ku yeeshay xarunta wasaaraddaasi waxbarashada. Kulankaasi waxa ka hadlay iyo ujeedadiisu daarna wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Yaasiin Maxamuud Xeer Faratoon oo sheegay in wasaaradda waxbarashadu dadaal dheer ugu jirto sidii ay u dadajin lahayd ardaydii deeqda waxbarasho ka heshay dalka Itoobiya. Waxaanu fariimo u diray waalidiinta iyo ardaydii ku guuleysatay deeqdaasi waxbarasho. Waxaanu intaasi wasiirku ku sii daray in macluumaadkii looga baahnaa maalinta bariya ay ku soo gudbiyaan. baasaboorradii waxaanu doonaynaa inaad soo xareysaan qoladayaha masterku. Qoladaha master's degree-ga u baxaya waxaanu u soo tabinay xalito u sheegnay inay baasaboorradoodii soo xareeyaan xafiiska wasiirka xigeenka ee wasaaradda waxbarashada inay ku soo xareeyaan maalinta Isniinta ee bariya. hal soo xareeyo si nidaam leh loo keeno yabaqa iyo buuqa iyo socodka badan hana laga daayo. baasaboorrada waxaa la idinka ururinaya waxa weeye in si nidaamsan loogu gudbiyo hay'adda safaaradda Itoobiya iyo wasaaraddeena arrimaha dibadda iyo inay la wada socdaan oo la iska hubiyo ofiisayaal lagu soo sameeyo oo dalku galka iyo dalku deganaashihii la idin sameeyo. waxaanu markaa doonaynaa ardaydu inay rito si nidaam leh bari oo dhan gelinka hore oo dhan way keeni karaan xafiiska ha keeneen qof walba waa la tigaraynaya waa la hubinayaa in baasaboorkii laga qaado. kooxda kalena waxay soo xareynayaan sida aan soo sheegnay ee aan WhatsApp-ka iyo meel walba idin soo gaarsiinay waxay soo xareynayaan khamiistay soo xareynayaan oo baasaboorkii laga qabanaya. iyaguna nidaamkii qolada hore martay nidaam la eegayaa la marinayaa marka baasaboorka laga qabto ayaa processkii kale la gelayaa oo ah tigidh iibintii dhoofintii iyo xaggaasoo Itoobiya oo meel dejintii wacyigelintii orientationkii la siin lahaa iyo dhoofitaankii aakhirka oo jaamacadahoodii u anbabaxayaan ayaa laga howlgelaya. waxaanu idinka codsanaynaa dhammaanba ardada haddaad tihiin hawshaa ku guuleysatay inaad si degan hawsha noogala shaqaysaan. halkii u dambeysay baynu maraynaa oo soo gaadhnay sidaa inaad noola socotaan baanu doonaynaa oo sidaa aad ku nagaataan oo ku deganaataan. rajo weyn waxaanu ka qabnaa wiiga kan dhammaadkiisa ilaa wiiga soo socda horraantiisa in badankeena hawluhu ay badanaaba inaga dhammaadaan oo aynu la kala anbabaxo. Cabdisamad Jaamac Axmed Cabdisamad Gire telefishinka Ariel Hargeysa.